munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu weyneynayo dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee ayaa lagu qabtay masjidka madaxtooyada. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Sheekh Yuusuf Ibraahim Cabdulla oo ka sheekeeyay ahmiyadda ay leedahay xuska mawliidka ee 12 bisha Rabiicul Awwal. maadaama aan joogno maalintii suubanaheena uu dhashay nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu dhashay 12 bisha Rabiicul Awwal مال السنينة سنة كي لأورنجري عام الفيل سنة كاسحوها سنة كي حاشد يكسر دو شيء كبعض إلهي يكسر دو شيء وها وإلهي سبحانه وتعالى وكوب البادية شمرتي أو إلهي سبحانه وتعالى سورة لما وها الله إلهي سبحانه وتعالى شمر بكوب البادية وكبعض مركا إخوة العزاء إلهي سبحانه وتعالى علامات سوى وين كمد هايد إنه حنقربك كبعدي سوء كل فاعلي شمر وحكلا إلهي سبحانه وتعالى وحيابا ووين أسيء ونسي كمد ها لا شذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شذ النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيه أدو وياه إلهي سبحانه وتعالى وحليه وأما بنعمة ربك فحدث نعمة إلهي سبحانه وتعالى نيم حاضر كشاكيبا لله marka umada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waa maamul in nimcada Ilaahay si ay ka sheekeeyaan marka waxaan sidii sheekeenaynaa nimcadaas oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nasiyay oo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. ugu dambeyn waxa munaasabadaasi hadal ka jeediyay Sareeyo Guuto Axmed Maxamed Salaad isagoona ku dheeraaday bishan iyo muhiimadda umada Islaamka ay ugu fadhiso. Ilaahay ka cabsano mu'miniintu markay isu yimaadaan waxa ugu qiimo badan oo ay isfaraan waa taqwada Ilaahay karaamada iyo haybada iyo gobonimada ka dhalata in Ilaahay dhacaasiyo gobonimada iyo dulliga ka dhasha waxaan ogaadinayaa guddiga qabaqaabada mawlidka nabiga ee guutada 77aad madaxdooda saraakiishooda saraakiil xuloonkooda iyo dawladda oo abaabulay حفلة ضد إبلي عيك شقيين وحملنا كرة وطبعة وكلها أكيدنا إلى أساس ونسرين sanad kasta marka la gaaro bisha mawliida dunida islaamka ayaa laga weyneeyaa dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee. Maxamed Cali Sibriyo warbaahinta ciidamada Muqdisho.